بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت وناكسن دمان أصحابتي قيمها بدن ميل كستو oo adduunka ka joogtaan. Muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsiisan yahay inaan uga jawaabno mid ka mid ah su'aalo in badan ugu soo noqnoqday markii aan ka hadlaynay mowduucyadii ku saabsiisanaa wax akhriska. Su'aashaasi waxay tahay luqadda Carabiga iyo Ingiriiska ayaa igu culus. Sidaa daraadeed sidee ayaan wax ugu akhrin karaa? Seen ugu gudbi karaa caqabada luqadda? In badan oo inaga naga mid ah waxa haysato caqabad ah inaysan inta badan fahmaynin luqadaha Carabiga iyo Ingiriisiga. Sida wada ognahayna luqadaha hadda adduunyada la joogo caalamiga ah ee kutubta inta badan ay ku qoran yihiin ama lagu tarjumo waa luqadda Carabiga ama Ingiriiska. Sidaa darteed waxaan isku dayi doonaa muuqaalkeena inaan uga jawaabno sidee ayaad iskaga xallin kartaa caqabada luqadaha, sidaas ayaad ku fahmi kartaa luqadaha Carabiga iyo Ingiriiska oo aad u noqon kartaa mid wax ku akhrin kara. Muuqaalkeena maanta kuma saabsiisana sida aad boqolkiiba luqadda ugu baran lahayd oo aad u noqon lahayd sida qof luqadda u dhashay oo kale. Laakiin muuqaalkeena maanta waxaan uga hadlaynaa bal inaan ka hadalno oo aan ka jawaabno sida ugu fudud ee aad luqadda u fahmi karto marka aad akhrinayso buugaag af Carabi ama af Ingiriisi ku qoran. Marka hore horta sida aan wada ognahay luqaddu si ahaanteeda cilmi uma aha oo cilmiga oo dhan luqadda kuma koobna, laakiin luqaddu waa wasiilo. macnaheedu maxaa waaye? luqaddu waa weygii ama wadadii loo mari lahaa cilmigii iyo aqoontii. maadaama aqoontii, fikirkii iyo khibradii kulli ay luqad ku qoran yihiin, saa daraadeed jidkii aad u mari lahayd inaad cilmiga soo hesho waa luqadii. haddii aadan luqadii aqoonin marka ma gaari kartid hadafkii ahaa aqoonta. arrinta labaad oo rabo inaan sheego waxaa waaye inta badan dhalinyarada iskuulada iyo jaamacadaha dhigta luqadaha wax lagu barto wadankeena marka la joogo waa Carabiga iyo Ingiriisiga waay. saa darteed abjadiyaadka luqad kasta waxay leedahay waxyaabo basics ah oo asaas ah. waxaan marka aan qirsanahay in badan oo naga mid ah abjadiyaadka ay u bilaaban yihiin, bilowgii ay u bilaaban yihiin. haddii xataa iskuul aan soo marin, dugsi quraan ayay dadkii soo mareen, qaarkood kutubtii ayay soo akhristeen. annaga marka ka Soomaali ahaan qofka Soomaaliga ah ee wax bartay waxa isleeyahay basicska ama asaaska luqadihii uu hayaa. masalan haddii aad dugsi sare soo dhameysay ama aad jaamacad dhigato ama aad soo dhameysay, luqadahaasi way ku fududaanayaan fahamkooda. sababtoo waxaan wax ku soo baranayba ayagay ahaayeen. saasoo kale dhalinyaradeena ama caruurteena markay iskuulada dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare marayaan waxay aadaan bareefad ama iskuulo khaas ah oo luqadii lagu barto. saa darteed marka hore horta luqadii ma ka nihin dad eber ka ah oo ummi ka ah. inteena badan waa laga yaabaa inay jiraan dad luqadii ummi ka ah oo aan basickeeda xataa aqoonin. dadkaasi waxaa la gudboon inay luqadii soo bartaan oo basicskeedii abjadiyaadkeeda soo bartaan. laakiin dadka aan la hadlayo waxaa weeyaan dad luqadii wax uga bilaaban yihiin, iskuulada ku soo qaateen ama jaamacadaha ku soo qaateen ama dugsi quraanada ku soo qaateen ama masaajida kutub ha uga soo raacdeen, laakiin luqadii aan boqolkiiba haynin oo luqadii inta badan aan fahmaynin. saa darteed marka maskaxiyan iyo nafsiyad ahaan baan u diyaarsanahay inaan luqadii sii fahamno, maadaama basicskeedii, abjadiyaadkeedii iyo bilowgeedii aad soo martay. haddaad rabto luqadii inaad sii fahamto ama aad sii barato waxaad haysataa isticdaad, yacni waa u diyaarsan tahay, waa qaban kartaa, wayna ku fududaanaysaa marka loo fiiriyo qofkaan luqadda waxba ka haynin. marka aan soo dhigin jirnay iskuulada waxaana loo sheegi jiray in luqaddu ay leedahay 4 skills ama 4 xirfadood. in badan oo inaga naga mid oo bareefadida soo maray aad iyo aad ayay u maqleen, laga yaabo wayna ku soo noqnoqotay luqaddu inay leedahay 4 xirfadood. waxa la yiraahdo speaking, reading, writing and listening. in qofkii uu ku hadlo, inuu dhageysto, inuu qoro iyo inuu aqriyo. saa darteed mid ka mid ah talaabooyinka ugu waaweyn ee luqaddan aad ku fahmi karto oo aad ku barato waa in akhriso. yacni midkeen wuxuu rabaa asagoo luqadii boqolkiiba yaqaano inuu kitaabkii inta soo qabto uu aqriyo, laakiin taa ma iskeenayso. luqadii inaad barataa waxay kaaga xiran tahay inaad wax ku aqriso. macnaheedu maxaa waaye? wax akhriska dhexdiisa ayaad luqadii ku baranaysaa. halkan marka iga qabso talada koowaado horta aqri.
si aad luqadii u fahamto oo aad u barato oo aad macallin ugu noqoto luqadii wax ku aqri. waa laga yaabaa marka hore inaad buugii waxba ka fahmi weyso, waxba ha isdhiin, wada haddana ku celceli, laana shaygan marka lagu leeyahay xirfad ama skill ma ahan wax mar iyo marateen hal mar iyo laba mar wax lagu barto ma ahane, waa ku celcelin. saa darteed buugii markii aad soo qabato oo aad akhriso luqadii uu ku qornaa, waxaa laga yaabaa marka ugu horeysa in 20% le aad ka fahamto. buug kale markaad soo qaado oo aad akhriso haddana waxaa dhici karto inaad 20% le ka fahamto. saasoo kale markaad wado waxaa siyaadaya marka erayadii luqadeed ee aad baratay ayaa siyaadaya. midda kale marka aad buug aqrinaysana eray ha isku dayin inaad u fahamto, laakiin isku day eraygan inaad ku fahamto luqadda aad yacni jumlada uu ku jiro, yacni baaragraafkan oo dhan inaad isku qabato ama jumladan wada socoto oo dhan inaad inta isku qabato aad buugii ku akhrisid isku day. laakiin marka aad eray u dul istaagto waxaa dhici karta in erayada ay kugu istaagaan wixiina fahamkooda uu kugu yaraado. saa darteed mid kamid ah tallaabooyinka waaweyn ama wadooyinka waaweyn ee luqadda lagu barto waxaaba ka mid ah inaad wax ku akhrisid oo aad isku dayd inaad wax ku akhrisid. bidaayaadka hore waa ku dhibtoon doontaa, ma fahmi doontid. haddii aad dictionary soo dhaweyso oo erayadu ku dhibo oo kale aad akhrisid aad iyo aad ayay ku anfacayaan. talaabta koowaad marka waxaa waaye luqadii waa ka cabsanaa iyo ma fahmaayo iyo horta meel iska dhiga bilow wax akhrintii bilow, buugii akhri, maskaxdaada ku fikir, isku qabo, isku day inaad baaragraafkan dhan fahamto. eray inaad fahamto maaha, laakiin inaad faqradan isku qoran oo dhan aad fahamto, isku day jumladan oo dhan inaad fahamto. saa darteed marka mid kamid ah tallaabooyinka ugu waaweyn waxaa waaye horta wax ku aqri luqadda. hadday wax kaaga bilaabayihiin oo aad iskuul iyo jaamacad kusoo martay ama kutub aad kusoo raacatay, wax way kuu bilaabayihiin waana fahmaysaay, bilow luqadii inaad wax ku aqrisid si luqadii aad u fahamtid. inaad luqadda fahamto waxay kaaga xiran tahay inaad wax ku aqriso. haddii buugan oo masalan buugan mutarjim waaye aad u badan yahay 400 safxadood waaye, laakiin haddii luqadda ay bilowga tahay kutubta yaryar ayaa kuu fiican inaad ku bilaabatid. haddii kitaabkan masalan uu yahay 78 safxadood oo aad ka fahamto 20 safxadood oo kamid ah injaaz waay, wax fiican aad qabatay. haddii buugan markaad akhrisay aad istiri buugan 100% meeqaad ka fahantay, 10%, 20%, wax fiican aad qabatay, ku soco buuga mar kale ku dar. talaabta labaad waxaa waaye masalan marka aad rabto buugan inaad xoogaa aad dareemayso inay luqadiisa kugu adag tahay, internetka ayaa la galaa, waxaa raadinaysaa buugan mulakhaskii laga sameeyey. yacni inta badan hadda fursadaha aad u badan yihiin, buugaagta waxaa jiro mulakhasaad ama summaries ayaa laga sameeyey, yacni khulaasooyinaa laga sameeyey. soomaalida maasha allah way soo badanayaan, inkastoo aysan badnayn aad u soo badanayaan. waxaa galaysaa internetka marka waxaa leedahay summary-ga buug hebel, yacni buug hebel khulaasadiisa. qofkii marka buugga soo aqriyo wuxuu ku siin doonaa buuggan jihadu u socdo iyo waxa uu ka hadlay ayuu si guud kaaga siinayaa. marka aad marka fikrad ka haysato buuggan aad aqrinaysid, hadhow markaa qiraa'adiisa gashid waxyaabaha ku caawinaya waxaa ka mid ah qofkii hadaalay soo aqriyay ee buuggan kuu soo khulaaseeyey waxyaabihii uu ka hadlayay ayaa ka dhex raadinaysa. saa darteed marka waxaa raadisaa buugaagta mulakhasaadkooda intaadan aqrinin ka hor. masalan buuggan waxaa la yidhahdaa alcaadaad as-7 linnaasi al-akthar facaaliya, the 7 habits of highly effective people. asagoo af ingiriisina u jiraa, asagoo af carabina u jiraa. waxaa jiro marka wuxuu ka hadlayaa 7 caado oo ay leeyihiin dadka waxtarka leh, dadka wax soo siyaadiyey, dadka guulaha gaaray, 7 dhaqan oo ay leeyihiin ayuu ka hadlayaa. tayib buuggaana rabaa inaan aqriyo, luqadiisiina xoogaa 100% ma aqaano. inta aadan buugga aqrinin internetka ayaad galaysaa, waxaad raadinaysaa aqoon-yahano Soomaaliyeed oo buuggan summary ku sameeyey ayaad raadinaysaa. haddii aad hesho waa alxamdulillah, ayagii ayaad fikrad ka soo qaadanaysaa. adigoo buuggii fikrad ka haysta waxa ay ka sheegeen soo diiwaan gashtay ayaad buuggii dhex galaysaa. buuggii markaad dhex gasho arrintaa waxay kaa sii saacideen inaad fahamto luqadda buuggan uu ku qoran yahay, maadaama sharaxaad yar oo kooban aad horay uga haysatay. dadka buugaagta samaraas garay waxaa ka mid ah ustaad mubaarak haadi, ustaad xasan qorane
oo maaragtay golaha buugaagta kusoo bandhiga buugaag uu summarize gareeyay waxaa jiro ustaad saadaam carab oo asagana soo dhiga buugaag uu soo khulaaseeyay kulligoodba qanawaad ayay ku leeyihiin youtube-ka waa jiri karaan maaragtay aqoon-yahano kale ayagana buugaagta khulaaseeya annagana waxaan isku dayi doonaa insha allah buugaag badan oo isleeyahay dhalinyarada way anfacayaan inaan soo khulaaseeyo markaa khulaasaadkaas iyo samarigaas aad soo dhegaysato buuggii akhrintiisii aaday ku kaalmeynaysaa haddii aad af soomaali ku helin carabiga aad fahmayso ingiriisiga uu ku dhibayo buuggoo mutarjim ah ayaad raadinaysaa ama buuggii oo mulakhas ah ayaad youtube-ka ka helaysaa aad iyo aad ayay carabta maaragta aad iyo aad aad u heli doontaa mulakhasaadka buugaagta oo dhalinyaro carbeed iyo aqoon-yahano carbeed ay soo koobeen waxyaabaha dhan inta isku darsato adiga buuggii dhexgal buuggan markaa 100% inaad fahantid qasab maaha haddii bilow aad tahay luqadiina xoogaa ay kugu culus tahay oo 40% 50% aad ka fahanto wax ayaad faa'iiday saa darteed marka talaad waxa waaye raadi buugaagta aad aqrinayso mulakhasaadkoodii inaad raadiso ayaa muhiim ah talaad saddexaad sidoo kale aan sheegnay waxaa ka mid ah waxyaabaha qofka luqadda inuu fahmo ka saacidayo waxaa ka mid ah dhageysiga badan iyo daawashada badan oo sida hadaala aan soo sheegnay skillska luqadda waxaa ka mid ahayd inuu qofkii wax dhageysto inuu aqriyo inuu qoro iyo inuu ku hadlo hadda marka waxaa u baahanahay luqadda inaan fahamno luqadda inaan wax badan ka fahamno si aad wax badan uga fahanto waxaa u baahan tahay inaad dhageysato ama aad daawato mararka hore dhageysanaysid wixii boobsiisay kugu noqon doonaa mana fahmaysid laakiin markaa ku celcelisid wax badan aad dhageysatid erayada qaar oo ku dhibo dictionary aad ka raadisid markii dambe waxay keenaysaa inaad la qabsato luqadii inaad fahamto waxyaabaha luqadda carabiga si gaar ahaaneed aad iyo aad iiga saaciday barashadeeda waxaa ka mid ahayd anigoo aan bareefad u gelin macallin aan u hoos fadhiisanin daawashada aflaamta maaragtay diiniga ah مثلا مسلسل عمر بن الخطاب وكله عربي فصيح أيكو هذليان وحدي حتى أرجع عربي هذا فاهمين قابك مسلسل وصعد آيات أرجع بعد سارة سادرت أرجع سأذيع معنو كوسا مينيا أنت جار أن داودي مسلسل كاس دور يصدن كحلقة ما مليسن كرتين مسلسلات إسلامية جرى مركو وخالد بن الوليد اللي قسميه كوات جرى معركتي مسلسل خيبر اللي يراهدو وحاجروا حرب الجاهلية وكلام مسلسل أزير سالم يعني تاريخ هو كفها بس عربتي دقن كودي لقدينا هو كبرنيسا ساسو كل وحياة لقد قفك كساعدة وحاكم إذا إنه وحكو برتو إنه قرا سكول هذا مركز عندنا جرني سكول كانوا حكوا بحجرة في إنجليز جامعة ده بوقتي وفي إنجليز سادرت مركز وابو قصبنتها إنا فهمتت إنا ديكشنري جراديسيد وحيابها صورن حسيادين أيام فهم كأن لقدن أولادها إنجليزي وكلام مركز جوكت دوكومنتريس أجرو يعني دوكومنتري بدن oo la sameeyay ayaa jiro BBC Aljazeera English ay sameeyaan xataa marmarka qaar dokumentariyada Ingiriisiga ku baxa waxa saaran subtitles oo af Carabi ayaa saaran waa isku fiirinay marka jeedada marka muhiimadu waxa weeyaan talaata saddexaad inaad wax badan dhageysato wax badan aad daawato isku daydo qofkan maqsadkiisa meesha u socdo iyo hadalkan meesha u socdo inaad fahamto marka waxa akhristiro badan dhageysi iyo daawasho mulakhasaadka isamariga oo aad raadisay erayadii aad isku daydo micnahooda inaad raadiso halaas oo dhan aad isku darsato luqadii way ku fududaanayaan haddii aad ma aragtay private u gasho ama aad college u gashana 6 bil ilaa 1 sano ayaa kugu filan basicska iyo asaasiyaadka luqadda inaad ku baratid markaa kadibna tacawudka iyo ku celcelinta ayaa ku bari doonta wax badan oo luqadaas ka mid ah khulaasada ugu dambeyn marka gabagabada waxaan rabaa inaad iga qortid wax ma jiro hal maalin iyo hal habeen inta aad ku fahamtay aad ka daldalaysid waxay u baahan tahay dadaal waxay u baahan tahay ku celcelin waxay u baahan tahay baarid waxay ku baahan tahay inaad isku fiirisid erayada inaad isku fiirisid ayay u baahan tahay sidaa darteed haniyo jabina Sheekh Salmaan ayaa wuxuu dhihi jiray qof markaan ku dhaho waxa samay oo uu i dhaho la astadiic ma awoodo waxaan ku dhahaa uu yiri xaawil isku day horta ina awoodidii in kala soo ku ogaanay marka isku day haduu dhaho macquul maahan suurtagal maahan waxaan ku dhahaa uu yiri jarrib tijaabi inay suurtagal tahay iyo inay suurtagal ahayn hadda marka luqadii ma fahmayo iyo way ugu culus tahay inta iska dhaafid luqadii wax ku aqri hadaa ay tiraahdo ma awoodo isku day ina wax ku aqrisid waliba isku dayga badi oo ha quusanin hadii aad tiraahdo macquul maahan waxaan ku leeyahay soo tijaabi
oo soo arag horta tijaabadaasna waxay ka dhalanaysaa markaa wax badan ku aqrisid wax badan aad ku daawatid wax badan aad baartid kadib isfiiri xaqiiq ahaan waxaad ma kugu culus yihiin mise ma kugu cuslaa taladeeda ugu weyn waxaa weeyaan haddaba bilow inaad luqadii wax ku akhriso aad iyo aad u mahadsantihiin aadna idin salaamaya sida aad u aragto muuqaalkan sida aad u aragto iyo ra'yigaada waxaan jeclaan lahaa inaad igula wadaagto qaybta hoose ee comments su'aalaha haddii aad ka qabto mowduuca wax akhriskana waxaan isku dayi doonaa su'aalaha inta badan soo noqnoqda inaan ka jawaabno si dhammaanteen aan u wada faa'iidno aad iyo aad u mahadsantihiin aadna idin salaamaya salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu